laakiin soo dhowayntan iyo mahadnaqan iyo aanu idin mahadnaqanno ma suurto galeen annaguna kelima lihin haddaan wafdiga nahay waxaa le cid kasta oo somalilaana oo ka qayb qaadatay mashruuc qaramaynta iyo nabadaynta ceelaf weyn cid kasta oo ka qayb qaadatay ama dalka ha joogo ama dibadda ha joogo ama gobolka sanaag ha joogo ama gobollada kale ha joogay aad iyo aad baan ugu mahadnaqannaa waxaan leenahay jasaakumullah khayr mashruuca qaramaynta iyo iyo nabadaynta ceelaf weyn way kala xoog weynaayeen waxaa warwar weyn nagu hayay nabadaynta ceelaf weyn guddidii muddada 60 maalmood u joogtay halkaa si gaaraan u salaamayaa ilaahayna ha ka abaalmariyo soo dhowayntani saan sheegay annagu keliya wafdi ahaan ma lihin xukuumad ahaanna ma lihin waxaa le cid kasta oo ka qayb qaadatay gaar ahaan dadweynaha ceelaf weyn gaar ahaan labada beelood oo si karaamo leh u aqbalay nabadayntii guddida iyo dawladduba iyo ummadda somalilanba ay aad u go'aamiyeen inay dhammaato aad iyo aad baan labada beelood oo aan u salaamayo boqorradooda iyo jiif caaqiladaba aad iyo aad baan u salaamayaa dadkii mashruuca qaramaynta cid kasta oo ka qayb qaadatay dawladda meel kastoo la joogo dal iyo dibadba waxaan leeyahay jasaakumullah khayr dhowr qof baan xusayaa suldaan siciid oo aan u bixiyey suldaanka qaramaynta ilaahay ha ka abaalmariyo dhiiranidii au muujiyey waxaa jira dad badan oo aan markii hore qorshaha ku jirin oo aan ka xusaya 2 nin oo la yidhaah aadan iyo cabdirasaaq naanaysay leeyihin ay ku caan yihiin mastar biinde iyo miishaarta iyaguna waxay ka qaateen qayb weyn oo la xaadlay ilaahay ka abaalmariyo ummadda somalilan meel kastay joogaan waxaan xasuusinayaa dawladda cusub ee muddada yar shaqaynaysay halxidhaalaheegu waxa weeyaan wadajir iyo waxqabad wadajirkii waa aragnay waa taa nabaddii ceelaf weyn inoo xidhantay waxqabadka markhaatiya shalay aanoo berbere jooga waxaan tegey oo aan soo eegay mashruuc wakaaladda biyaha ay wadday oo ah xoojinta iyo in biyaha berbera la xoojiyo mashruuca madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ayaa furay oo dhagax dhigay muddo bil ka yar amba shalay waxaan u taagnaa isagoo gebageba ah oo maalmo yar 2-3 maalmood buu ku dhammaanayaa waxay muujinaysaa waxqabadka cid kasta waxaan leenahay ummadda somalilan wadajirka gamcaha isqabsato waxay qabsato unbaa u qabsoomaya waxay qabsato unbaa u qabsoomaya waxaana kow ka ah midnimadeeda inaan gacanta isqabsanno oo aan midowno oo aan ku talagalno ummadda somalilan inay nagayna sugaso cid kasta oo derisa nabad baanu ugu baaqannaa sidii madaxweyne hore ugu baaqay gogolna waan dhigannaa meel kasta oo munaasib ay ku tahay waana naga daacad cid kastana waxaannu leenahay nabaddu waa qaali nabaddaa wax lagu noqdaaye colaad cidina waxba kama hedheefto xabaalaha ku bata ilaahay hayna waafajiye wixii khayr ku jiro cid kastoo halkan maanta timidda ceeddaa timidayna waanu mahadnaqayaa waxa weeye annagu waajib qaran baanu gudananay laa shukra cala alwaajib laakiin cid kasta oo ka qayb qaadatay ciddii ka qayb qaadatay waa jiraan markii hore dad lahaa suurto geli maayaan maanta idinkuna farxa ciddii ka qayb qaadatay ee niyada kaga jirtayna hadda maashaado somalilan meel kastay joogaanba ilaahay waxaan ka baryannaa inuu inaga dhigo inuu horumarka inoo sahlo dhulka nabad cirka arsaaqad iyo madar